أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل عملي وأدعو ربي أن يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا ودين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد إن أصحابتا qiimaha badan meel kasta joogtaan waqti kasta idin tahay waqtigu ha idin wacnaado badbaado iyo naxariista eebana korkiina ha ahaato ramadaan mubaarak. waxaan jeclaystay insha allahu tacaala maanta inaynu isxasuusino isku baraarujino hal xadiid oo ka mida axaadiista nabigeena maxameda salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh. xadiidkaas oo nabigu sala allahu calayhi wasalam ugu bashaareynaya ummadiisa oo inaga inoogu bashaareynaya iyo qof kasta oo bishan qiimaha badan kheyrka iyo wanaagu ku dheehan yahay soo gaadha uu ugu bashaareynayo isaga oo ugu bashaareynaya inuu kheyrka soo waajahay uu ka faa-iideysto uu wanaag iyo kheyr iyo waxa weyaan acmaal suban ku qaabilo xumaanta iyo sharkana waxa weeyaan qofkuu ka gaabsado si aanu soonkiisa uga nusqaamin. bal xadiidkan ila fiiriya dhammaantiin insha allahu tacaala oo ila dhegeysta ma dheereysinaya insha allahu tacaala. nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay habeenka u horeeya ee ramadaan waxa weeyaan waxa la xidhaa oo la silsiladeeyaa shayaadiinta waa la xidhaa kuwooda madaxa adag leh waa la xidhaa. nabigu sala allahu alay slam hadana waxa uu yihi waxaa la xidhaa albaabada naarta mid ka midana lama furo. allahu akbar. waxaa la furaa albaabada jannada mid ka midana lama xidho. mid dhawaaqa ayaa dhawaaqa dabeetana waxa uu leeyahay qofkii kheyrka jeclaa warkii kheyrka jeclaayow kii wanaagga doonayayow bishii wanaagga iyo kheyrkii naxariista ayaa timida ka faa-iideyso aqbil. warkii xumaha iyo sharka wadayowna ka gaabso ka joogso walada eg. allahna subxaanahu watacaala habeen kasta oo ka mid ah ramadaan waxa uu ka xoreeyaa naarihiisa addoomo ayaa uu ka xoreeyaa waxa weeyaan naarta. bal xadiidka cajiibka badan la eg habeenka ramadaanta u horeeya waxa uu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam waxaa la xidhaa oo la silsiladeeyaa shayaadiinta oo addoomaha laga qabtaa dadka mu'miniinta muslimiinta. haddana waxa la xidhaa albaabada naarta mid ka midana lama furo. haddana waxaa la furaa albaabada jannada
mid ka midana lama xidho. mid dhawaaqa ayaa dhawaaqa, dabeetana waxa uu leeyahay ku dhawaaqaya waarkii khayrka jeclaa khayrkii wanaagga doonayay soo qaabil oo ka faa'iideysa bisha oo khayr iyo wanaag ku camir. waarkii shar iyo xumaan la ordayowna ka gaabso, ka joogso oo ka joog. allana subxaanahu wa tacaala habeen kasta qolo ka mid a addoomihiisa ayaa uu ka xoreeyaa naaraha. run ahaantii walaalayaal, dhammaanteen aynu ka faa'iideysano waxa weeyaan maalmaha kooban, ayaama macduudah weeye, ee waxa weeyaan aadka u kooban, ee haddana khayrka iyo wanaagiyo amaasha fadaaisha waaweyni ay rabbi subxaanahu wa tacaala dhex dhigay. waa maalmo koobane aynu ka faa'iideysano, aynu ka qaniimeysano, aynu waxa weeyaan soonkeena ilaashano, oo aynu ka dheeraano wax kasta oo soonkeena inaga nusqaaminaya. ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa dhammaanteen inuu inaga yeelo kuwa naaraha ka xoreeyo. allana subxaana wa tacaala uu inaga yeelo kuwa bishan ka qaniimeysta ee waxa weeyaan ka faa'iideysta, ee allana subxaana wa tacaala soonkooda maqbuul ka yeelo. intaaynu ku kulmayno barnaamijkan lamid waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.